maariyaha guud ee wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxa uu cadeeyay in hawlaha biyo ballaarinta ee caasimadu ay si xawli ah u socdaan wuxuuna maariyuhu sheegay in muddada loogu talagalay ay ku soo gabagaboobi doonto mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadu mashruucaas wakaalada biyaha haday tahay wasaaradda madaxtooyada iyo haday tahay dhammaan xukuumadda way ka go'an tahay inuu ku dhameystiro waqtigiisii muddadan dambe aad leedihiin waxa laga yaabaa hawsha inaan si socon oo wanarkii website waxa soo qoray waxaynu ku jirnaa muddadii kala guurka sanadka oo sanadka cusub soo galaya waxaynu ku jirnaa fasaxii Christmaska oo hay'adihii dhammaan ay ku wada jiraan fasaxa jiraana waa taa oo dhammaan hay'adihii caalamiga ah imika wadanka ka maqayno fasax way ku maqayn runtii kuwana gabalafta fasax way ku jiraan wax istaagina ma jiraan mashruucan biyo ballaarinta Hargeysa waxa gacanta ku haysta shirkad caalamiya shirkad Ethiopiana waxa contract siisay UN-ta ayaa ka mas'uula supervisionka iyo in la hubiyo tayada mashruuca waxa iska leh hay'adda UN Habitat oo ka nagala jooga sarkaalkii Maxamed Faarax ugu sarreeyay Hargeysa mashruuca ma istaagin fasax Christmas baa lagu jiraa markayna soo laabtaan baanu shaqadu sidoo u bilaabmi doontaa runtii wax istaagay ma jiraan anaka dhamaana way naga go'an tahay maxaa mashruucaas inuu si ku socdo xagga doorka ay wakaaladu ku leedahay wakaaladii Soomaaliland baa waa beneficiaries ka mashruuca waa cid mashruuca ka faa'iideysan doonta laakiin cid baa fulinaysa shirkad caalami ah fulinaysa mashruuca tayadiisa iyo hubintiisa inuu si socdaan waxa ka mas'uulaha hay'adda UN Habitat dawladdu waxay ku leedahay rol ah inay caawiso hay'adahaas oo ay hubiso waxay u baahnaan inay haystaan deegaanku inuu ka yahay wax kale ku leedahay ma jiro xagga cid baan arkay soo qortay lacagtii haas wakaalada haysa waxa rol kuma laha waa heshiis u dhaxeeya wakaaladu rol kuma laha maarayo rol kuma laha waa heshiis u dhaxeeya shirkadda caalamiga ah ee mashruuca ku guuleysatay iyo UN Habitat Mr. Daarood maariyaha wakaalada biyaha Hargeysa waxa uu ka warramay oo kale muddadii koobneed ee wakaalada maamulayay in hawlo ballaaran uu ka qabtay dhinaca biyo soo saarka isagoo hawl weyn ka fuliyay matooro fadhiyay intii aanu la wareegin xilka way marxaatibi ka wadin dhamaan dadka ku lugta la wakaalada biyo 7 mishiin baa geed deeblay yaale 3 baa taagnaa maanta mishiinka saddexaad baa la soo keenay laba noo diyaar sameeydan garan maanta waxa kala wareegnay ceelasha biyaha Hargeysa lama aqoonin waxa ka soo baxa geed deeble lama aqoonin ceelka waxa lagu tagay in lagu xidho saacado sheega waxa ka soo baxa saddex ceel oo kale ku xinaayeen intii kale maanta way ku xidhan yihiin 20 cishan xukunka joognaa sameeya garan hawshin biyuhu waa hawl culeyskeeda la san horaba u sheegay runtii mas'uulka sahalkan loo dhiibaana uu dareemay runtii laakiin taas waa taas gabagabadii waxa uu maarayuhu sheegay in ay jirto waqti ajaanibka ka hawlgala biyo soo saarku ay fasax leeyihiin sida ciidahooda oo ay kamid tahay tan Christmasku warbaahintuna aanay sidaasi u fahamsanayn Maxamed Cali Jihaad oo xiriiriyaha hay'adda UN Habitat iyo wakaalada biyaha ayaa isaguna waxa uu sheegay in hawsha ay u socoto sidii loogu talagalay isla markaana ay ku soo gabagaboobi doonto muddadii loogu talagalay biyo ballaarinta caasimadu wuxuuna sheegay in dhammaanba ajaanibka ka hawlgalaya biyo soo saarka ee ku maqan fasaxa ciida Christmasku ayaguna dhawaan soo hawlgali doonaan Hargeysa maanta biyaheedii meel ka tagay ma jirto shaqadana 60% baa la sameeyay intii uu adkeyd waa la sameeyay marka waxa jeynina contractor-ku inta kala dhameeyo sida ugu dhaqsaha badan waqtiga way ku socdaan maaha waqtiga doonaan bay dhameeyeen shahabsaato waxa jira wax la yiraahdo liquidated damages maalin hadduu shaqada joojiyo $1000 per day ayaa laga qaadaya contractor marka maaha waxa yar oo la iska joojinayo marka la doono la bilaabiyo marka la doono la joojinayo